عبد الله سندكم وعقل كلمة وصلّيك فضل مركز سجى أنت بدل استدير الثلاث أصله مركز الدولة تكسو حنوتها وعاد يا أبو القيمة يقدريته مركز لقى صوت وهذا الذي والله أنت كتير أصلها الدنيا مرة بدل مرة هذا مرة نسوي الحمد لله ما أنت إلى سيجا صاحب الإنسان ترى الأسرة الألبان يوسف العراق وعصصنا سياسة الصومال وهذا لا يخصو الدوالة شوف الآن حرمتكم من جاك إسماعيل هذا اللي يخصو الدوالة هذا له فرحسنة فرينتها وطان إذا واحد كان الإنسان يجري إن شاء الله نكون عنه والله كلية ما أنت صوماليا waxay ku jirtaa xaalad adag oo u baahan in loo naxariisto loo turo la fiiriyo waddankan meesha uu ka yimid iyo meeshuu maanta taagan yahay waxaa garan karaya ciddii joogtay 30 sano ee dhibaatadu ay dhacaysay waxay garan kartaa xaaladda la soo maray iyo xaaladda waddanku meesha ay marayso laakiin waxaan odhan karaa ma garan karo qof socoto ku yimid taas daraadeed waxay kulligeen ina wada furan tahay oo weliba aqalkiinan sanadka iyo odayaasha Soomaaliyeed ee waxgaradka oo maanta ay waajib ku tahay in loo turo waddankan oo la fiiriyo xaaladiisa oo laga odayeeyo oo la isu tanaasulo oo waxa laga shaqeynayaa ay noqoto waddankan iyo meesha uu marayo xaaladda sidii hore loogu soo wadi lahaa aad baan idin soo dhaweynaynaa imaantikiisa wuxuu noo yahay farxad waxaan rajeynayaa insha Allah inaan wixii fariimaha iyo wixii hadalana aan dib ka wada hadli doono mar labaad iyo mar saddex soo dhawaada odayaasha kulligiin waa in leedin wada xusaad mudantii laakiin waa rag wada waaweyn kulligood waa hanmar intii ugu cusreed baa la soo qaaday marka khayr badan inuu ka socdaan filaya aad baan idin soo dhaweynaynaa aad mahadsantihiin aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaynaa soo dhaweyntan qadarinta iyo qiimaha leh ee aad maanta noo samaysay anigoo idinka cudur daaraya annaga daagistayadii aanu soo daanay oo aan isleeyahay muddo dheer baad cadceedan joogteen raalligelin baan arrintaa ka bixinaya marka hore oo ah yacni inaydun saaka aroortiin baad halka timaadeen ilaa waqtigan aad nagu sugayseen raalligelin tayda caadi aan ka bixinaya anigoo ku hadlaya magaca wafdigan ila socday aqalka sare intaa haddaan ka baxo magaalada Kismaayo waxay iigu dambeysay 76 waxaan imid 74 mar labaad waxaan ku soo noqday 75 mar saddexaadna waxaan ku soo noqday 76 waad garan kartiin waqtigaa waxay ahayd waqtigii aas-aaska xisbiga hantiwadaaga kacanka Soomaaliyeed anigoo xafiiskii siyaasadda ka tirsan ayaan 3 jeerba u imid xubnihii gobolkan uga mid noqon lahaa baarlamaanka maanta waxay ii tahay farxad aniga iyo wafdigaan hogaaminayo iyo sharaf 76 imisa ka dambeysay Kismaayo inta ma arag laakiin maanta inaan imaado iyadoo dawladda oo nabada farxad weyn bay ii tahay oo waan ku qadarinayaa madaxda mas'uuliyiinta guud iyo dadweynaha shacabka ee dalkan Jubbaland dawladda Jubbaland iyo gaar ahaan shacabka Kismaayo ما أنا من أنت لكن مقال كان هي
inay nabad tahay waana waxa ugu weyn ee aynu maanta u baahannahay annagu waa idiin nimid waxaanu idinku nimid nabadda oo ballaarata iyo dalkeenna guud ahaan oo nabad noqda oo mid noqda oo heshiiya ayaanu idinku nimid inaanu idinka helo fikirkiina dhabta aan ogaano arrintaanu idinku nimid taas weeye waynu iswaraysanaynaa siduu madaxweynuhu yidhi waa isweydiinaynaa laakiin ogaada waxaynu u baahannahay midnimo iyo nabad ayaynu u baahannahay guud ahaan dalka Soomaaliya yani qof kasta oo mas'uuliyina inuu taa maskaxda ku haysto oo uu noqdo diyaar heshiisiin iyo wada hadal iyo nabad aan dalkeenna ku gaarno nabad aad iyo aad baad mahadsantihiin maanta intaasaan odhanayaa yani waxaanan idin leeyahay waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhoweyntan iyo tixgelintan aadna siiseen aad baad ugu mahadsan